waa maxay sababta ay mataanaha ay u dhalaan dadka halkan ku nool marka la eego hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed dumarka mataaneeya ama lakeeya ayaa adduunka loogu jeclaa ixtiraamka ugu badanna lahaan jiray isla markaana meel ka sarreysa dumarka kale ayaa la geyn jiray ama la gaarsiin jiray ninku golayaasha ayuu kaga faani jiray isaga oo gabadha markay umusho u qala awr 3 jir ah haddii aan la heli karinna wan weyn oo geesa leh oo subag madooba ah si cadiinta la iskula dhaco waa wanqashiye laakiin taasi waxay ahayd mar la arag iyo waxaan sidaasi u badnayn gabadha ugu badan ayaa 2 jeer mataano dhali jirtay ama kunkii haween ah mid ka mid ah ayaa mataaneyn jirtay laakiinse maanta waxaanu idin haynaa deegaan iska dhan oo dumarka oo dhammi ama intooda badani mataano ay dhalaan dadka magaaladan ku nool intooda badan waa mataano taas oo magaalada ka dhigtay mid caan ka ah ama goonni ka ah dalka intiisa kale degmadan waxaa lagu naanaysaa degmada mataanaha adduunka sababtoo ah ma jirto meel dunida ka mid ah oo mataanuhu sida ugu badan yihiin qof kasta oo degmadan ku nooli marka la weydiiyo mataano miyaa kuu dhalan doona ama mataano miyaad dhali doontaa waxa uu kugu jawaabayaa haa mataano ayaan sugayaa umana baahni qalab lagu eego caloosha gabadha haa waan hubaa oo 2 ayay noqon doonaan ma filaya hal cunug marmar waxaa halkan loogu yeeraa caasimadii adduunka ee mataanaha ma jirto meel kale ama magaalo kale oo tartan kula jirta magaalada marka aad u soo daadegto waxa aad arki doontaa ama kaa hor imanaya qaar badan ayaa isku eg oo isla eg mataano iskuul wada dhigta ama shaqo ku wada jira ama aqalka hortiisa wada taagan ayaad arki doontaa mana kala garan kartid isku ekaanta darteed oo waa dameerow labadada dhagood bal car yaa kala garta yaase kala aqoonsan kara 2 shilin oo dhulka lagu tuuray halkani waa magaalada Igbo Ora oo ku taala bartamaha gobolka Oyo oo ku taala dhinaca koonfur galbeed ee dalka Nigeria waqooyiga ayay 80 kilomitir ka xigtaa magaalada ganacsiga iyo mashquulka badan ee Lagos maadaama ay degmadani ay tahay mid caana badan oo beeraley ah mar baa la isiri arma caanaha badan ay sababeen mataanaha laakiin jaamacadda Lagos oo baaritaan samaysay waa ay weyday wax xiriiriya mataanaha iyo caanaha lo'da ama cuntada kaleba jaamacaddu intaasi baaritaankeeda kuma hakin ee waxa ay farta ay ku fiiqday geedka la yiraahdo yam ee deegaanka laga cuno iyo in ay mataanuhu ay xiriir leeyihiin waa maleh laakiin ma aha caddayn cilmi ah oo isku xiriirinaya yam iyo mataano la dhalo yam waa mid ka mid ah dhirta xididkooda la cuno sida baradhada ama bataatiga macaan muuqaalka bataati lagama yaqaan waxaa caan ku ah oo aad u beerta isla markaana cuna Nigerianka haddii aad booqato magaalada Igbo dukaanka waxaa iibinaya 2 mataano ah shaqada waxaa ku wada jira 2 mataano ah suuqa waxaa wada taagan 2 mataano ah isla mar ahaantaana goobaha lagu ciyaaro waxaa ka buuxa mataano waxaad arki doontaa hooyooyin 2 gacmood ku kala haysta 2 caruur ah oo isku mar dhashay waxaa dhif iyo naadir ah inaad aragto qoys meel degan ay caruur ay u joogto oo aan mataano lahayn markii dadweynaha la weydiiyey sababta ay magaaladani u leedahay mataano aan xad lahayn waxa ay bixinayaan jawaabo kala duwan qaar ayaa aaminsan in biyuhu ay ugu wacan yihiin kuwa kale ayaa rumaysan in geedka caleenta ah ee sugada laga dhigto ee loo yaqaano okra uu ugu wacan yahay qaar ayaa aaminsan in ay tani tahay deeq alle oo aan muran iyo su'aal midna u baahnayn dadka deegaanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in ay soo booqdaan dad mataano doon ah caleenta cuntada lagu darsado iyo biyaha magaalada ayay qaataan oo ay la tagaan degmooyinkii ay ka yimaadeen laakiin wax mataano ah waa iska waayeen waxa kale oo cajiib ah suugada laga sameeyo caleentani waxa ay dhadhan leedahay oo ay adag tahay marka isla magaalada lagu sameeyo laakiin haddii caleenta loo qaado magaalo kale ma noqon karto tan lagu sameeyo magaalada Igbo waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media ha ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha naga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan isla markaana ay wax uga bartaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad ayaad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu